xanuunka coronavirus gaar ahaan gobolka Mudug gaalkacyo Puntland sida la wada og yahay ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu noo keenin xanuunkan aafada ah adduunka caalamka dhan dhibaateeyay oo safmar noqday muddo soo socday oo wax badan wasaaradda caafimaadka iyo bahda gobolka ugu horeeyo iyo degmaduba gaar ahaan gobolka Mudug ee Puntland aan ka shaqaynaynay muddo dhowr 20 casho ah aan u diyaar garoobaynay haday tahay wacyigelin haday tahay dadka in bulshada qaybaheeda kala duwan haday tahay ganacsatada haday tahay culimada haday tahay dhaqaatiirta haday tahay hay'adaha nala shaqeeya dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan ee gobolka Mudug aan ka shaqaynaynay maanta waxaan final ku guulaysanay inaan helno xarun aad muhiim noogu ah oo aan u talagalnay dadka suspected-ka ah inaan keenno xaruntaas oo runtii aan ugu mahadcelinayno maama xaawo aadan camay ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu caafimaad khayr qaba iyo nabad qabsiyo waxay ka mid tahay xaawo dadka bulshada ugu muhiimsan ee gobolka Mudug runtii meesha noogu deeqday oo aan u talagalnay meesha aad u quruxda badan oo sharafsan oo wanaagsan ayaan waxaan ku diyaarinay agabkii ugu muhiimsanaa oo ah sariirihii iyo oxygen-kii iyo qalabkii caafimaadka iyo shaqaalihii iyo agabkii oo dhameystiran ayaan maanta diyaar noogu ah waxaan kaloo maanta u mahadcelinaynaa hay'adda BSF oo nagu wareejisay agab oo runtii wuxuun ah aan u baahannahay runtii aad ugu baahannahay agabkaas oo runtii ay kaga qayb qaadanayaan howlahan jira xaruntan ilaahay ka sukow waxa mahadeeda iska leh maama xaawo aadan camay oo noogu deeqday xaruntan oo ka kooban laba qaybood qaybtii lagu karantiilayay dadka ee qaybtii ay degayeen dadkii u shaqeyn lahaa dadkaas ee caafimaadka waxaan si aan kala har lahayn u shaqeynayay shaqaalaha caafimaadka ee gobolka oo hogaaminayo isku duwo iyo gobolka iyo degmada intaba iyo bahda saxaafadda dhammaantay waan shaqeynayay wacyigelintu way socotaa waxaan rajaynayaa dadweynaha reer gaalkacyood inaysan dhayalsan xanuunkan annagu waan ognahay qof walba wacyigelin ku filan uu haystaa laakiin saas ay tahay dadka guryaha inay joogaan ayaa la amray 2 week waa la fasaxay haddana saas ay tahay iskuuladii waa la xiray dugsiyadii waa la xiray waxaa lagu rajaynayaa inay qaataan tacliimaadka iyo wacyigelinta ay siinayaan bahda caafimaadku ayaga ayaa wacyigelinta ku filan annaguna waan xoojinaynaa maama shukri aadan camay oo senatarkeena ah aad bay u mahadsan tahay sida sharafta leh ay nolol shaqeynaysay waxaan rabnaa inaan jaaniskan uga faa'iideysano laga bilaabo maanta 6 maqribnimo waxaa la joojiyay dhammaan wixii qaad iman jiray Puntland at the same time degmada gaalkacyo laga bilaabo 6 maqribnimo maanta wixii ka dambeeya qaadku waa mamnuuc qofkii lagu arkaa soo qaad ka ganacsanaya ama soo gelinaya waxa laga qaadayaa tilaabo sharci waxa kaloo la joojiyay isku socodka gaadiidka taas waxay saameynaysaa xuduudaha rakaabka isku socodkiisana waa la joojiyay rakaabyada ka imaanaya meelaha kale ayadana waxa la rabaa in loo hogaansamaado awaamirta soo baxaysa waxay ay dan ugu jidhaa badqabkeena gurigan aad arkaysaan xaawo aadan abaalmarinta caalamiga ah la siiyay ka dhista meel kale ma geyn siyaasad ku arkaysa inay istaahisho abaalmarin waa qof aan iyadoo in adduun tabcata ku talagelin inay ummadda u shaqeysan ma ahayn khayr Allah siiyaan la ajir iyo xasanaad badan Allah ka siiyo dhammaantoodna khayr Allah siiyo hadalkii maayarka iyo waxa yiri isku duwaha dadka waxaan rabaa inayan dhibsan waxyaabaha loo sheegay